barta Facebook ee bulshadu ay ku wadaagto muuqaalada iyo sawirrada isla markaana ay ku wada xiriirto ayaa waxaa soo wajahday ciladii ugu weynayd taariikhda iyada oo adeegyadii ugu muhiimsanaa ay cilado galeen dadka dunida kala jooga ee isticmaalana ay adeegsan waayeen maalintii Arbacadii markii ugu dambeysay ee cilad baaxaddan ku dhow ay soo wajahdo ayaa waxay ahayd sanadkii 2008 markaasi oo dadka isticmaala ee dunidu ay ahaayeen 150 milyan halka ay haatan bil kasta isticmaalaan 2.3 bilyan oo qof ciladan ayaa saameysay adeegyada ugu waaweyn ee shirkadaasi Facebook sida labada app ee lagu magacaabo Messenger iyo WhatsApp oo fariimaha la isugu diro iyo waliba sidoo kale Instagram-ka oo lagu wadaago sawirrada wali lama shaacin sababta keentay ciladan waxaan ka warqabnaa bay yiraahdeen in qaar ka mid ah aysan hadda isticmaali karin Facebook iyo appka ay isku bahda yihiin ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay shirkadaasi Facebook waxaanu ka shaqaynaynaa baa la yiri sidii ciladan loo soo afjari lahaa sida ugu dhaqsaha badan shirkadda oo ka jawaabaysa warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in shirkaddu ay adeegga u joojisay si ay u baajiso weerar dhanka internetka ah oo lagu soo qaaday ayaa waxa ay sheegtay shirkaddu in arrintu aysan sidaasi ahayn waxaa la qiyaasayaa in ciladani ay bilaabantay saacadu markay ahayd 7 fiidnimo ee saacadda bariga Afrika qaar ka mid ah dadka isticmaala shirkadaasi Facebook ayaana bilaabay inay ka cawdaan inaysan waxba ku qori karin ama aanay sawirro kula wadaagi karin dadka Instagram-ka isticmaala ayaa iyaguna awoodi waayay inay bogga cusboonaysiistaan si ay sawirro cusub u daawadaan 22kii bishii Maarso ee kal hore ayay shirkadda Facebook waxa ay shirkadda Cambridge Analytica ku eedeysay inaysan si aan munaasib ahayn u adeegsatay xogta macaamiishaasi iyaga oo metelaya bay tiri siyaasiyiin macmiil war qoraalaha uu soo saaray madaxa shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa waxa uu xilligaasi sheegay in meelka dhac lagu sameeyay aaminaadii balse waraysi dambe ayuu siiyay xilligaasi shirkadda CNN waxana uu ku sheegay in uu ka xun yahay waxana uu ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono appka aan daacad ahayn 6 bishii December ee 2018 emailada ay qoreen madaxa shirkadda Facebook iyo ku-xigeenkiisa ayaa muujinaya in shirkaddu ay dhibaato uga timi heshiisyada qarsoodiga ee ay qaar ka mid ah shirkadaha ugu ogolaatay xogta dadka isticmaala Facebook halka ay kuwa kalena u diiday 25kii bishii Janaayo ee sanadkan aynu ku jirnay ee 2019 shirkadda Facebook ayaa sheegtay inay doonayso ama damacsan tahay qorshe ay ku rabto inay mid uga wada dhigto adeegyada fariimaha la isugu diro ee kala Instagram-ka, WhatsApp-ka iyo Messenger-ka sida uu shaaciyay wargeyska lagu magacaabo New York Times inkastoo saddexdaasi adeeg ay wada ahaan doonaan kuwo mid walba uu gaarkiisa u taagan yahay haddana fariimaha la isugu diro mid ka mid ah ayaa u sii gudbin doona dhammaan kuwa kale Siciid, Axmed, TAMREYSE wararka telefishanka caalamiga ah ee Star